nasiib daro in muddo ahba waxaa ka hana qaaday geyigayga siyaasad kooxaysan oo ku qotonta kala qaybinta iyo kala irdhaynta ummadda walaalaha. kooxdani waxay ku adeeganayaan isbahaysiga siyaasadeed ee jeegaamaysan oo ah shaar ay keligood ku macaashaan. waxaan ku nuxnuxsanayaa inaan marnaba beelaha ay ka soo jeedaan loo aanayn karin ereygaas iyo siyaasadda guracan ay halabuurkooda leeyihiin. badanaa inta hal door milgo iyo maamuus leh oo ka soo jeeda beelahaas oo karaamo iyo waxqabad ummadda u soo kordhin lahaa xayndaabka siyaasaddana looga tuuray maadaama aanay la aragti ahayn. waxaynu wada ogsoonnah in nuxurkii halgankii adkaa iyo curashadii somalilan ujeeddadeedu ahayd inay dalkeenna ka suusho cadaalad darradii iyo dulmigii midabada badnaa eena soo maray, mid shakhsi iyo mid deegaanba, lana dhiso bulshaweynta somalilan bari iyo galbeed oo nabdoon, midaysan, meelna u wada jeeda, dhib iyo dheefna u siman. waxay cabashooyin sii kordhaya ka soo butaacayaan gobollada awdal iyo salal iyagoo ah hoygii midnimada somalilan, loomana muujin waxgarowshiya. himiladii iyo dadaalkii sixitaanka ee tabliiqiga siyaasadeed ee u waday profesor axmed ismaaciil samatar ee xambaarsanaa xal nabadeed iyo somalilan la wada leeyahay waxay ku dambaysay inay tisqaadi weyday lana siin waayey mudnaanteeda. sidoo kale waxaa jira la-aan u deldelan gobollada sool iyo sanaag bari, waxaana cad in marka laga tago ciidan mooye aan wax horumarinay ka jirin. waxaana ka aloosan dhaqdhaqaaqyo liddi ku ah nabadda iyo xasiloonida. haldoorkii u yimid ee uu cali khaliif hogaaminayana waxay ka huleeleen dalka kadib markay la kulmeen bahdilaad iyo niyad jab.